السلام عليكم. أريو حقاق والالكي فاروي وفي عنتا علي سوي هي عرفون ميادي ها كان نينك أو مركز أنا وذا سعني أي نين ويمد وحير نينكي خوز بو كل استحمر ونأمني وايي مركان أيان عام صناع وورك لا عام صناع نينكي نين ساحب كيس لأها ونينكان هريلا أريو ساحب كيس ونينكي إيسو أذيك سدي وير أشيك عرفون نينكي إنو ناقور سدي حمرنا الدقي غير كيسو نعشتين انتا سأوقات حد الناق نينكي يسوق يسي ناق بو قور سدي اللي يري وحي قبان لها أيا إقبطي intiinii la socotay qisada jacayl ee maxamed nuur aadan oo ku magac dheer adeera oo TV-ga Universal la wadaaga 4 bil ka hor hadda waxa helnay natiijada sheekadaasi waxaana markii ugu horeysay in la soo xiriirtay carfoontii oo adeera jacaylkeeda u waalnaa wax ka badan 30 sano hadda waxay ku sugan tahay magaalada Muqdisho caasimadda dalka aniga adeerana waxa ku sugannahay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose masaafo ahaan labada magaalo ayaa isku jira 500 oo kiiloomitir balse socdaalka dhinaca hawada ee diyaaradda ayaa saakiin oo sahlaya in ani adeera aan ku tagno muddo hal saac rajadii adeera ee carfoon ahayd hadda waa marwo 4 guur oo ay soo martay aan wali wax u badaha dhalin waxayna inay cafis weydiisato uga timid mid kamid ah magaalooyinka aan ku jirin gacanta dawladda si aysan ula kulmin qatar amni iyo xuquuq bulsho ayay cusutay inaan u qarino xogteeda oo wajiga kamid yahay dareen ahaan is aragoodii maalinkii koowaad iyo labaad ayay inoo suuro gelin inaan helno dareen xakamaysan oo ay inagula hadlaan balse saako is aragoodii saddexaad ayay labadooduba inoo qisa warrami doonaan. السلام عليكم. أريو حقاق والالكي فاروي وفي عنتا علي سوي هي عرفون ميادي ها waa maalin kale oo dareenkeeda waxaana dib u kulmaya dad isjeclaa 30 sano ka hor kuwaas oo calafka iyo waqtiga kala fogeeyay balse midkood uu ilaalinta axdiga jacayl ka maray dib jacayl oo aad u badan kaasoo noloshiisa galiyay saacado maalmo iyo sanado mugdi ah carfoon oo ahayd jacaylkiisii ugu horeeyay ee adeer oo calfan waayay ayaa maanta inooga sheekaynayso sida uu ku burburay axdigii guur ee ka dhaxeeyay labadooda foon baa la yiraahdaa jab yaroo ninkan ii yaqaanay naanistiisa ariyow ayaa la dhihi jiray ariga tuuladuna raaci jiray marka ninkan anigu sidaad wax u fahanteen ama bulshadu ay u maqashay waxba uma jiraan ninkan walaalkay ahaa waa isjeclayn waan rabnay in arrinteena dhamaysano هذا هات وحن علف أهين لما عنا وحن ود هين اللومة دنتو نين كان سوى أريلا وأريلا كرع تولد خوسار كأه بو يروا كرلا وهذا هذا الني أنا ورتي أقول نواها أيها كورسة يدين ويد متي نين أري راعي مكافيه بل وحار نولش نولك بدل السماء بيرو طبعا ذي بيرو لا ينقضي تعب أوقعي تعبكي بو سفر صدي وسفر لا aado buu soo raagay muddo buu maqnaa ilaa adigu dhowr bilood buu maqnaa hadda naagna waxa la kasnaageed waa kadro kaaga dambeeyay anigoo laba labeynayo la ninkii maxaa ku dhacay maxaa helay leh ninka uu markaas aan wada soconay ayaa nin uu yimid wuxuu yiri ninkii khoos buu ku dhistay xamar waan aamini waayay markaan ayaan aamusnaa oo warkii la aamusnaa ninkii nin saaxiibkiisa la ahaa oo ninkaan hariila ariyo saaxiibkiis ah uu ninkii iisoo adeegsaday uu yiri u sheeg carfoon ninkii inuu naa guursaday xamarna degay reerkiisuna cishteen intaas ha ogaato hadda naag ninkay sugaysay naag buu guursaday la yiri wixii qaban lahaa ayaa iqabtay waa iska xanaaqo ninkan awalba ninkan aan kaga kalsoona ayaan haddana ku noqday ninkii baa iska guursaday ilaahay waxna ma kala siin waa kala harnay nin kalaan guursaday alxamdulillaah inkastoo iga dhintay qaxooti baan galay midkii ugu dambeeyay hadda waan wada joognaa oo afraad waxna ma aanan dhalin marka walaalkay waxaan bulshada meelaha ka maqlay oo meelaha la iga soo tabiyay in uu xanuunsaday xanuunkiisii anigu waa la xanuunsaday aad baan ula kurbooday saas la awligeed ayaan maanta xiriir iyo wax u sameeyay walaalkay waxaan ka rabaa oon ka codsanayaa oon kaga baryayaa iyo macal bulshada Soomaaliyeedba inuu walaalkay iska cafiyo oo cafis ii fidiyo mahad cabdi shaqlan oo ah shakhsi wax badan ka og axdigii guur ee burburay ee ka dhaxeeya carfoon iyo adeera ayaa sheegay inaysan filaynin aragtideeda carfoon
balse waxa uu sheegay in dhibka loo mara Carfoon uusan u qalmin qiilka ay maanta la timid. lambarkayga anoo mahad cabdi shaqlana ila soo xiriirtay ninkana iliyo waa la yiraahdaa adeer Ismaaciil oo baxde gabadhan Carfoon waaye anaga maanta waxaan ku faraxsanahay alxamdulillah rabbil caalamiin ina iliyo iyo Carfoon ay is arkaano. Carfoon waxay marsiya ka dhiganaysaa aniga nin baa ii imaaday iliyo wuxuu ku guurtay Muqdisho yiraahday waxaasna ma jirin. iliyo Muqdisho kuma guursan iyada aabadeedu u baxay hantidiisu la imaaday ballanka baha iyada keentay laakiin nin walba waxaan aan kala dadaarma ama nin ha aado ama gabar ha aado ama wiil ha aado waa inuu ballanta iyo ahdiga waa inuu ilaaliyaa. Adeera oo duco iyo daweyn dhanka dhimirka oo ka helay Dr. Xabeeb uu alla ku caafiyay ayaa isaga oo qiiraysan si kooban uga hadlay la kulanka gabadhii uu darteeda dhibka badan u maray. Carfoon jab yaray in is aragna waa ku faraxsan aan dartaa dhib badan soo maray haddana waa fiicnaaday alxamdulillah. horeyna waa lagu caafiyay haddana waa lagu caafiyay ilaahay ilmaha ku siiyo aan afis leega tale. bilowga sanadka cusub ee 2023 ayuu qorshuhu yahay inuu adeera la midooba gabar ay xigtay yihiin taasi oo aqbashay guurkiisa ballan qaadayna in ay xanaaneyn doonto inta ka dhiman nolosheeda. waxaana hadda socdo dhismaha guri loo dhisayo adeera iyadoo garab laga helaya shacabka Soomaaliyeed.